بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انت كبعدي وحان سلام إسلام كأنكو السلام يا دمان dadweynaha Soomaaliyeed ee halkan isugu yimi ee rag iyo dumarba leh dumarku waa tiir dhaxaadka weey guriga haya waxa jira udub guriga dhexdiisa u haya dumarku Soomaaliyeed waa tiir dhaxaad weey marka salaanta islaamka ayaa dhamaantiin idinku wada salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta kadib waxaan u mahad celinayaa ilaaha weyn ee waahidka ee kaligiisa ee koonkan aynu ku noolahay samaawaadka iyo dhulka iyo waxa ku hoos jiraba allaha xukuma ee wuxuu doono ka sameeynaya allahaasan u celinaya bilyaar jeer mahad inta kadib mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay hoolkan quruxda badan ee agaasimka fiican ku dhacay rag iyo dumarba waan u mahad celinayaa waxaana leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku cuslayo maalin baa jirta loo baahan yahay waan qof xoog weyn iyo qof taajira iyo qof shiiqa iyo qof ma garanaysa qof ilaahay cabsidiisa ku baxsada maahe maalinta dambe loo baahan yahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku cuslayo intii ka soo shaqaysay ee gudoomiyuu ugu horeeyay Saciid Cabdiraxmaan Cali waxaan akhyaartii kale la shaqaynaysay dhammaan ee halkan wada fadhida magacyadooda halkan kuma soo koobi karo ilaahay waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku cuslayo ifi aakhiraba Allah idin barakeeyo ubadka Allah idin xafido ilaahay idin kaga farxiyo maalin baa jirta suma wallahi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه والله ما لم باجرت لك لا يعيو قف ولا بين يا نفتي وها شيخها تفسير نوغو دراي شيخي وا فديا ما شيخيني شيخ عبد الرحمن ابيض oo tafsiir noo aqriyay ayaa yiri hooyo loogu jecel yahay dunida hooyaynu ugu jecelahay iyo waalidka abiyo hooyo waad ogtiin ilaahay markuu aynu ilaahay aqoonsanay ee qirnay waalidka ku xiga waa laga soo horreysiyay wixii kala dhan marka hooyada baa ku oranaysa inta in leg waxa weyn 0.00 igu dar markaas diidaysa oranaysa kugu dari maayo maalintaas jirta marka waxaan leeyahay dhammaan intii ka soo shaqaysay miisaanka xasanaadka Allah idinku cuslayo kulligiin waxaan kala u mahad celinayaa walaalaha aan aad u jecelahay ee Denmark daafaheeda ka yimi ee inooga soo safray ee safarka soo galay safarku waa qidca min an-naar weeye safarka inoo soo galay ee halka inay lacagtii ay nagu aaminaan oo reer Copenhagen ku aaminaan oo Sheekh Cabdiraxmaan iyo masaajidka oo madaxda ka yahay ay ku aaminaan waxaan walaalahaasna waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku cuslayo Allah idin barakeeyo oo ilaahay ma garanaysa idin kaga farxiyo ifiya aakhiraba dhammaan intii ka wada qayb gashay ee kii ku bixiyo 100 korona Allah ka dhigo waayo xabad timira baa naarta kaga baxso rasuulkeenu yiri walaw shidqa timira waxa weeye baa rasuulku yiri kaga baxsada sadaqada 100 korona waa sadaqo wixii ka badanna waa wax aad u wanaagsan dhibaato xun baa haysatay dadkeena Soomaaliyeed shanta Soomaaliya oo la ma garanaysa NFD ka soo bilow koonfur ku xoji waqooyi ku xoji Djibouti iyo Ugaadeniya gobolka aynu u naqaano Ugaadeniya Ingiriiski gobolkii uu bixiyay siiyay Ethioopiyaanka xabashiga siiyay shantii Soomaaliyeed adduunka meel kastoo ay ka joogaan way u kaceen arintaana way ka damqadeen wallaahi oo billaahi anigu habeenkii suuqa waaheen uu gubanayay waan daawan kari waay cali warsamow daawo baa la igu lahaa waan daawan kari waay Cabdikariin Axmed Mooge wuu ooy anna 100 jeer baan ooy wuu ooy isagoo ooya baa la soo deynay aniguna waan ooy
waxaan ka ooyay walaalahay baan u damqanay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed baan u damqanay that's why waxaan ina leeyahay oo Soomaali leeyahay war dibad baynu ku noolahay waa tii ugu horeysay aynu iska kaashano gobolaysi waa jira Copenhagen waa jira Fun waa jirtaa Yuulaana waa jirtaa iyo nawaaxiga kale ee Denmark ay leedahay waxa weeyaan waa tii koowaad ina kulmisay war billaahi calaykum aan ilaahay dartii inta kalena aan u sheegno aan qalbigeena sifayno aan ka sifayno wixii xun ayna kala tafaraaruqayna gudhridaya qabiil baynu ka dhalan nin waliba waa qabiil Ali Warsame qabiil buu ka yimi qof kasto halkan fadhiyana qabiil buu ka yimi war qabyaalada aan iska deyno turno iyada aan isjeclaano aan wax wada qabsano sunno fiican baa inoo bilaabmay wallahi billah aan taawadno waan ku faraxsanay 1 milyan bay ku sii socotaa qolada reer Odense waxaan ugu bishaareynayaa waxa jira lacago waad ogtihiin maamulada ka jira wadankeeni waa yariye qof la aaminaya waa yariye waxba abaarihi baa soo maray fatahaadii baa soo martay wixii ka dhacay magaranaysa duufaanadii ka dhacay goboladan dhexe gobolada bariya dhexe baa aynu ognahay waxa weeyaan war aamin baa dhintay aaminkii waa dhintay waa la laayay aamin qof la aamino billaahi calaykum qolada xagga joogta iyo qolada halkan joogta mas'uulka inooga waxaan leenahay oo ku waaninayna war lacagteeda abaaraa jiray dad walba gaar bay u haysatay dhibaato taagnayd war lacagteeda ayaan la cunin in calool weyn iyo cunin oo ku ridan caloosha hal la siiyo dadkii ehelka waha ee masaakiinta aha ee walaalaha si ay soo xilqaameen ilaa North America ilaa Australia ilaa New Zealand Europe Khaliij Arab oo dhan Muslim oo dhan Soomaali oo dhan kulli way u gurmadeen waana arrin positive waxyaabo aan waan samray markii hore laakiin ilaahay wuxuu raxmadayda ha ka quusanina ma quusanayno intaan noolahay waxaan leenahay islaamku waa guuleysanaya waynuna guuleysanaynaa don't worry nafteena farxadaan u sheegno sheekheena culimadii waa fadhida sheekh Cabdiraxmaan baa fadhiya sheekh Mahdi baa fadhiya culimo badan baa fadhida Allah ha karaameeyo waxaan ina leeyahay war maanta ilaah baan idin ku dhaariye qaaf rabbakum ilaahay aan ka baqno ilaahay cabsidiisa aan soo dardaarano aan masaxno halka qabiilka aynu ku sidano Ali Warsame halka aynu qabiilkiisa ku sito oo markuu laga hadlayo muslimna markaad runta doonaysaan aan iska sii jeedo muslim wax laga sheegayo habar jecel hadii la soo qaadanaan soo jeesanayo war waa sidee aan idhaahdo yaa soo qaaday reerkaygi masaajidna waa fadhiya safka horan jooga billaahi calaykum waxaan inoo wada dardaarmaya ilaahay hoggaan war dadku isma nabca war dadku waa jecel yahay war dadku waa walaalo innamal mu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuun baa ilaahay wallahi in kala ma inagu baa walaala waxaan ku walaalownay islaamnimada iyo wada dhalashada iyo qaraabada iyo ehelka ilaa raaskamboni ilaa cidifka uu ku jiro ma garanaysaa ikaadadeer ilaa cidifka kale ee boosaaso iyo Looyacado ilaa Djibouti ku dar waxa weeyaan malaalaynu nahay aan qalbigeena xaadhano waxaan mar kale u mahad celinayaa ilaaha weyna waaxidka waxaan kale u mahad celinayaa dhammaan inta halkan fadhida iyo inta iga maqan rag iyo dumarba ee juhdiga nasiibada ku dhacday dadka walaalaheen ee masaakiinta maanta ah awla tijaaraha waxa weeyaan October baa hooyaday wadankii ku geeriyootay hargeysan ka soo sameystay shoobin sidii hadda ninku sheegayay meel bay ahayd runtii lagu farxo meeshii baa gabaahiir aan daawan kari waay hadda marka ilaahay waxaan weydiinayaa in ilaahay ummadda u sikhiro waxaana aad ugu faraxsanahay inayna oran deeqbixiyaasha aan qof kaliya kamaan maqal oo dadkii uu ka gubtay sheekhi baadlihi shiraacle ama waaheen dadkii uu ka gubtay kama maqal alxamdulillah aad baan ugu magaranaysaa ugu mahad celinaya iyagana aan ilaahay khayr haydi siiyo dhamaana lacagta aynu ururinay qof aamina ha ku dhacdo qof aamina ha ku dhacdo oo dad aamina waxa jira Odense waxaan ka ilaaway lacagba anigu meel baan fadhiya xawaaladeed waxa weeyaan waxa jira
lacago isoo maray oo odense ka yimi oo dad yaryaroo teen age ama under age ay soo ururiyeen oo ay leeyihiin sheekh dirir un baan aaminaynaa maxamed cumar dirir allah xafido aanoo daayo culimada ayaan aaminaynaa waxaan kale ka bax cali warsamow warka daaya odense u geeya saaxiibaday baa ku jira waxa weeyaan faysal baa ku jira yuusuf ismaaciil waxaa ku jira maxamuud cabdilaahi jaamac baa ku jira xasan ka dambeeya iyo qaar kaloo badan buu yidhi marka intaasaan iga raalli ahaada qalbiga aan sifayno aan ilaahay u toobad keenno waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka qiiroonayaa oo ka ooyey oo in badan aan ka ooyayaa sida loo gurmaday ee Soomaaliya aynu u kala hadhin meel kasto ay joogto muhibbada iyo kalgacaylka rasuulku wuxuu yiri isu hadeeya waxa siiya waas jeclaanaysaan waa sunne muakkida oo wanaagsan oo khasban ku khasbanahay oo rasuulku inoo jideeyay iga raalahaada haddii aan wax khayr sheegay ilaahay baa i asiibsiiyay oo iga keenay wixii khalad aan galayna naftayda shaydaan baa ka adeegay aad baa mahadsantiin dhammaan walaalaha halkan ka soo shaqeeyay waxa weeyaan intii u timi inta ka soo qayb gashay inta naga maqan iman kari weyday intii wax ku bixisay inta noo soo wada ee wali soo wada waxaan leeyahay faan noole fari kama qodna waxa weeyaan baad celintii shalaambood baadkii Mareykan baa hadda laastay halkan oo kale noqdo sanawaad baa lagu bixi jiray oo jiray baad celintii shalaambood war ciidii baa soo wada meeshii soo gasho beeri soo gashay iyo marka waxaan leeyahay faan noole fari kama qodna aan iskaashano waxaan leenahay sidaas aynu soo qabsanaynaa gacanta midigta gacmaha midigta inuu isku dhageynaa rag iyo dumarba mar kale dumarka baan hoolka fiican inoo habeeyay raashinka inoo sameeyay ilaa waqtiga u taagnaa iyadoo bil Ramadaan lagu jiro guriyaha ku garaacayay meel cuno cab ka sameynayay wax ka soo juhdiya sameynayay dumarka waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku usleeyo جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحسن الله إليكم جميعا انت هالكن سقوتمي يا مسلم كلا كغيب كلا وهنا جوش الله سيو سيدي الله جوسو عليو انت لا هيد ولا هيد حقنا إله هو فتشي هلا سيو يلا بوبين هلا عليو وحي بوبا يا بوب كسمينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.